Bismillaahi Raxmaani Raxiim aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin ardayey waxaan soo dhiganay wixii aynu oran jirnay pharmacology 1 ayaynu dhammaynay maanta waxaan bilaabaynaa sidii balankeenu ahaa pharmacology 2 pharmacology 2gu waxaynu ku qaadan doonaa wax kasta oo system ku tacalluqa dawo kasta oo system ku tacalluqda dawo kasta oo system ka shaqaysiinaysa systemyadii sida caadiga jirka ugu shaqeeya inta badan waxaa la rabaa 11 12 kuwaas oo dhan dawooyinka loo isticmaalo oo dhan baynu qaadanaynaa tusaale ahaan kale waxaan qaadanaynaa dawooyinka loo isticmaalo hawo mareenka dawooyinka loo isticmaalo kaadi mareenka dawooyinka loo isticmaalo dhiig mareenka waxaas oo dhani waa dawooyin marka loo isticmaalo bay leeyihiin marka magacyo kale ay lahaanayaan dawooyinka dhiig karka dawooyinka loo qaato caloosha dawooyinka gastriga loo qaato nidaamyo noocaas oo kale ayaynu dhiganaynaa insha Allahu tacaala maalmaha inoo harsan course-keena inoo harsan yahay maanta waxaynu dhiganaynaa system ka mid ah systemyada tissue-ga marka tusaale ahaan oo kale kan waxa weeyaan waa dawooyinka loo isticmaalo xanuun baabi'iyaasha oo dhan baynu dhiganaynaa maanta kuwiisa ugu caansan ama dawooyinka inta badan ugu caansan dawooyinka waxaa ka mid ah dawooyin la yidhaahdo NSAIDs la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa waxaana loo soo gaabsadaa non-steroid anti-inflammatory drugs waa dawooyin inta badan loo isticmaalo anti-inflammatory u shaqeynaya qaab inay ka hortagaan inflammation inay ka hortagaan ayay u shaqeynayaan marka antibioticski ma aha waa qaar ka duwan qolooyinkani marka waynu eegi doonaa mid baynu geli doonaa inta badanna waxaa loo isticmaalaa walax ama hormone sabistan hormone oo sabistan oo laga soo daayo jidhkeena ayaa waxay sababtaa xanuunka sidoo kale waxay sababtaa fever xumad ayay sababtaa sidoo kale inflammation ayay sababtaa taas ayuunbaa lagu sameynayaa in la xidho deena waxa dhacaysa meeshii ka baxaya xanuunkii waa ka baxaya feverkii waa ka baxaya inflammationkii waa ka baxaya caabuqii waa ka baxaya markuu intaas ka baxo waayo markaan gudagalno NSAIDska waa non-steroid anti-inflammatory drugsku waa dawooyin markaa loo isticmaalo waa medication hoos u dhiga waxa la yidhaahdo pain xanuunka fever xumada iyo sidoo kale inflammation caabuqa haddii markaa hoos u dhigayaan dawooyinkaasi halkay ka shaqeeyaan baynu isweydiinaynaa waxay inhibition ku sameeyaan ama inhibiting xidhaan production soo saarka la soo saaray prostaglandin maadada la yidhaahdo prostaglandin marka prostaglandinku waa maxay waa which are hormone like substance waa sabistan ama walax markaa u eeg sidii hormone oo kale ayaa u eeg maxay markaa sababtaa that causing symptoms calaamadahan bay sababtaa calaamadahan maxay kuwee waa pain iyo fever iyo inflammation bay sababaan waa xanuun xumad iyo maxay caabuq bay sababaan oo jirka ku sababaan kuwan bay markaa aynu xidhanaa xanuun baabi'iyaal baa la yidhaahdaa marka xanuun baabi'iyaal iyo xumad baabi'iyaal waynu israacinaynaa marka group of non-steroidal anti-inflammatory drugska gruubadan bay ka tirsan yihiin analgesiska haddaad maqashaan waa anti-pain waxa weeyaan waa anti-pain ba magaca kale la yidhaahdaa waa inay xanuunka ama relieving pain waa inay xanuunka meesha ka saaraan tusaale ahaan oo kale Panadol baa cuntaa maalin walba soo maaha markuu madaxu ku xanuuno waa analgesic weeyaan antibiotic drugska baad cuntaa tusaale ahaan paracetamol way ku jirtaa sidoo kale waxaa ku jirta aspirinti xumad baabi'iyaal ba kuwaa la yidhaahdaa anti-inflammatory waxaa la yidhahdaa haddii dawooyinkan xaddi badan at high doses haddii xaddi badan la isticmaalo inflammationka ka hortegi karaan waxay ka hortegi karaan maxay in caabuq dhaco ayay ka hortegi karaan saddexda group ayaynu ka qaadan doonaa waxaa la yidhahdaa xanuun baabi'iyaasha ugu caansanna ama dawooyinka ugu caansanna waynu qaadan doonaa insha Allahu tacaala aan sii socdo way prostaglandin halkan bay kusoo dhiganay waxay nidhi marka prostaglandintu waxay bilowdaa oo ay keentaa pain fever iyo inflammation maxay iyadu tahay aynu isla weydiinaa halkee laga soo saaraa waxaasoo dhan baynu isweydiinaynaa prostaglandin waa hormone like substance waa walax markaa hormone oo kale marka waxaa laga soo saaraa waxaa laga soo saaraa body jirka laga soo saaraa maxay ka ciyaartaa markaa role of various physiological process siduu jirku u shaqeynayo qaybaha kala duwan jirku u shaqeynayo processka u kala shaqeynayo ayay ka qayb qaadataa markooda hore waxaa ku jira in inflammation bilowdo hadduu nabar meel ku dhaco inflammationka markaa caabuqa iyadaa bilaabaysa marka laga tago xayawaanada iyo waxyaabahaas jeermiska iyo waxyaabahaas way ka faa'iideysanayaan
blood flowing dhiigga socoshadiisa ama marka sida dhiigu u socdo isaga ka qayb qaadanaya ama nidaam prostaglandintu saameyn bay ku yeelataa. Smooth muscle contraction muscle-ka ama waxa la yiraahdo muscle-ka aynu oran jirnay muscle-ka waxa weeyaan waa muruqii soo jiidashada ama isu soo laabka smooth muscle-ka ka iyada ka qayb qaadata inta badan. Intani markaa waxay sharaxaysaa halka laga soo saaro cell membrane-ka xuubkii uu lahaa cell-ku. Deedna xuubka waxaa kasoo markay soo baxdo waxa u soo bedelaya waxa la yiraahdaa phosphate A2 ayaa waxa u soo bedelaya arconic acid. Arconic acid bay markaa ka bilaabanaysaa. Arconic acid ayay ka bilaabanaysaa. Arconic acid-daasina waxay soo saaraysaa waxa la yiraahdaa prostaglandins bay soo saaraysaa. Prostaglandin markaa inay soo baxdo waxa ka mas'uul ah enzyme la yiraahdo cycloogenesis 2 waxa la yiraahdaa cycloogenesis waxa inta loo soo gaabsaday maxay cyclooxygenase 2 ayaa ka mas'uul ah inay prostaglandintu soo baxdo. Waa enzyme markaa kani enzyme-kaas hadhow xidhanaa tani ma soo baxayso markaa meesha waxa ka baxaya xanuunkii inflammation-kii iyo fiber-kii baa ka baxaya. Haddaynu kaa xidhnana wuu ka baxaya arconic acid lama soo saaro. Haddaynu kaa xidhnana ma soo baxayo. Deedna markaa dawooyinku waxay ka shaqayn doonaan kan inay xidhaan oo meesha ka saaraan. Deedna prostaglandin ma soo baxayso. Cell-kii baa soo saarayso maaha anigu aan lahayn. Deedna wuu soo arconic acid buu soo bedelaya. Deedna kan un baynu xidhana bis. Mid kale jira la yiraahdo cyclooxygenase la yiraahdo 1 la yiraahdo qaybtan markaa soo saara oo isaguna prostaglandinka soo saaro ay mararka qaarkood arki doono meelaha qaar inaynu maxay xidhno. Kaas waa kaa marka inta ay la fahan kaasaa la xidhaya un hadhow kaas un baynu xidhana. Waayo maxay prostaglandin shaqo qabataa shaqadeedu waxa weeyaan inflammation-ka inay bilowdo marka inflammation inay markaaba ka jawaabto oo markaa ay bilowdeen meesha xanuun yimaado barar yimaado tusaale haddii meel wax kaaga dhacaan casaan bay noqotaa way barartaa meesha xanuun bay noqotaa. Waxa ka mas'uula prostaglandin waxa la yiraahdaa maadada jirka laga soo saarayo. Sidoo kalena maxaan ku sii dari karnaa waxaan ku sii dari karnaa socodka dhiigga iyada ka mas'uula. Mar waxay samaysaa vasodilation inay balaariso vessels-ka. Mar waxay samaysaa in vessels-ka ama xididada yaryarayso oo naarooyin blood vessels-ka ay ka dhigto ama ay koobto. Smooth muscle contraction-kiisa waxay samaysaa iyadu in ay contraction samayso smooth muscle-ka aniga soo dhiganay. Sidoo kalena waxay samaysaa blood clotting-ka inay markaa waxay samayso inay xinjirow ku samayso in ay xididadii dhiiggiisii inay xinjirow ku samayso way ka qayb qaadataa. Pain-ka iyada bilowdaba waa inagii nidhi signals-ka waxay transmission garaysaa ama ay qaadaa signalada inta badan ka mas'uulka pain inuu yimaado. Tusaale ahaan maskaxdii baa loo sheegay waxa la oranaya halkaa pain baa jira xanuun buu meesha qofka ka dareemaya iyada ka qayb qaadata. Liver induction mararka qaarkood dumarku waaba iskaga soo ridi karaan marka ay maxay prostaglandin laftirkeega cunaan. Hadduu iyadoo waxa jirtay muxuu ahaye waad iska ilaalin doontaan hadhow markaad ku shaqo tagtaane prostaglandintu iyadoo caadi loo soo saaray baa jirta oo kiniina misoprostol baa la yiraahdaa. Taas waxaa la yiraahdaa laftirkeega qofku hadduu cuno ilmaha yar uu ka soo dhacaa. Dad badan baa si khalad u isticmaala. Waa iska ilaalin doontaan. Waa prostaglandin caadi ma aha wax kale. Antibiotic kuma jirto laakiin prostaglandin kaliya haddaad cunto maanta oo qofkaas uu leeyahay ilmuhu ka soo dhacaya. Marka waxa la yiraahdaa liver induction inta badan waxa la siiyaa dumarku markay umulayaan. Soomaalida waxay yiraahdaan radiid iyo ay yiraahdaan iyadii dib kale aad loo isticmaalo baa jira. Menstruation-ka waxa weeyaan in ay ka qayb qaadato dhiiggii caadada ama cycle-ku marayay oo ay samayso uterine contraction-ka samayso iyada ka mas'uula. Sidoo kale qofku inuu casiro oo markuu dhiigga ama qofka dumarka markii dhiigga leedahay tusaale menstrual cramps-ka male-ka leedahay tusaale caloosha casiraad oo kale inay ka dareento waxa ka mas'uula prostaglandinta ka mas'uula. Marka inta badan waa tala soo siiyo qofku markuu farmasiga tago waa tala soo siiyo kiniinadan oo kiniinada diclofenac oo kale kiniinada aadka loo isticmaalo waxa kamid ah paracetamol oo kale kuwaas oo kale sababta loo markuu cycle-ku socdo sababta loo siiyo weeyaan waa qofka markaa uu ka go'aya
xanuunka iyo muscular cramps way ka go'ayaan waayahay marka aynu sii yaro socono halkani waxa weeyaan halkay xidhaan markaa dawooyinka haddaan doonana prostaglandin waxaan waa shaqadiisa maaha shaqadan waa shaqada nima doonana inagu shaqada inay mar walba dhacdo xanuun bilaamada looma ogola sooma in qofkii laga fuuriyo ma ogola inuu muscle cramps ama calool casir qofku markuu cycle ama inta ku jirto cycle lama ogola in hawshani dhacdo sidoo kalena in uu tusaalaha inflammation meesha yimaado caabuq meesha yimaado ma rabno sooma waa haddaba prostaglandin shaqadeeduna aynu joojino halkay ka soo baxdaa marka hore waa inaga nidhi si waxa soo saara selka deedna waxaa loo soo bedelaa iconic acid baa loo soo bedelaa waxaana ka mas-uulahayd inay soo bedesho oo noqdo prostaglandin cox2 ama waxaan oran jiray cyclooxygenase enzymekaas ka mas-uula haddaba halkan ay noogu soo qor halkan inhibition factor lagu sameeyo production of prostaglandin siduu u dhacaa iconic acid soo maaha marka hore halkan waxaa laga soo saaraya maxay selkiiba soo saaraya iconic acid buu imanaya waaye haddaba siyaarisku halkay tagaan ama dawooyinkan antibenka loo isticmaalaa halkay wax ka qabtaan labadan qaybood wax ka qabtaan qaybtaa bay naga yara daayaba qaybtan inta badan aynu isticmaalno qaybta markaa aynu qaybtan bay dawooyinkeeni iyo painkeeni ku jiraan iyo inflammationki feverkiiba ku jiraan qaybtan waxa weeyaan waxa ka mas-uula enzymeka ma ka mas-uul ahaa soo maaha cox2 ama cox2 ayaa ka mas-uul ahaa ama cyclooxygenase enzymekaasa ka mas-uul ahaa soo maaha kaas halkaas ma la xidhaya enzymeka halkaa u bedeli lahaa prostaglandin u bedeli lahaa iconic acid intuu ka yimaado prostaglandin loo bedeli lahaa ayuunbaa kan bono la xidhaya marka dawooyinkani halkan bay ka shaqeeyaan haddaba prostaglandin mar kale waa la xidhaa cox1 baa xidhaa ama enzymekaasaa la xidhaa prostaglandin si aana usoo bixin markaa kan wuxuu tusaale ahaan dawooyinkani waxa dawooyinkan ceeb bay leeyihin tusaale ahaan qofka waxaa loo leeyahay qofka waa la weydiinayaa oo weli qof waxaa la filayaa inuu qofku weydiiyey ama uu ku weydiiyey tusaale ahaan oo kale qof dhakhtari oo ku yidhi ma leedahay muxuu ahaye bahalki ma leedahay gastric inuu waa lagu weydiiya dhakhtar marka tagto sababta ku weydiiyo maanta kuu sheegaya adiguna waad weydiin doontaa dadka markaad ka iibinayso dawooyinkan sababtu waxa weeyaan dawooyinkani waxay ceeb leeyihiin waxay keenaan gastritis bay keenaan calool olol bay keenaan gastritiska iyagaa bilaaba waayo prostaglandintu waxay inoo tartaa mar kale faa'iido bay noo leedahay maxay tartaa protection waxay ilaalisaa of gastric mucosa xuubka gastric maxaa la oran jiray waxaa la oran jiray caloosha xuubka caloosha ayay inoo ilaalisaa bahashani intaas horta faa'iidadeeda ugu weyn leedahay xuubka caloosha hadday inoo ilaaliso waa inagan dawooyinkii qaadanayna dawooyinkii xidhaya prostaglandin la soo saaro waa inagan xidhana marka maxaynu samaynaa qofkani gastric hadduu leeyahay oo meeshii aad ka saarto wixii la oran jiray prostaglandintuna ay soo saari jirtay inay inoo ilaaliso caloosheena xaggana inta khasaaray kale ogow halkana waad ka xidhay marka labadanba way xidhaysaa cox2 labada enzyme hadday xidho faa'iidadiisii iyo khasaarihiiba way xidhaysaa marka qofku waxaad oranaysaa miyaad leedahay hadduu ku idhaahdo haa waan leeyahay gastric dawooyin kale oo aan lahayn oo aan halkaa xidhayn baad siinaysaa dawooyin kale oo aan halkaa xidhayn baad siinaysaa marka dawooyinka aan ku idhaahdo halkaasay xidhayaan cox2 bay xidhayaan waxay leeyihiin gastriga ama caloosha waxay ka saarayaan waxa la yidhaahdo makowsaha ama gastriga qaybtii xuubka ilaaliya gaasta xuubka ka ilaaliya inay gubato calooshu inay gubato ayay xidhaan dawooyinkan oo maxaa yaa soo saarataa prostaglandin baa soo saarta prostaglandinna waynagan xidhana marka mushkiladdu waxa weeyaan qofkiina xanuunkii baynu ka yaraynaynaa mushkilad kalena way leeyihiin marka khasaaraha waad kala dooranaysaa qofka hadduu leeyahay gastric xun ha siinin iminka waa kuu sheeg waay aan sii socdo marka dawooyinka aan u galno ama aynu u galno maxay groupka ugu horeeya analgesics baa la yidhaahdaa analgesicsku waxa weeya waa medication markaa qofka relieving pain ku sameeya inuu maxay xanuunku ka yareeyo without causing loss of consciousness so qof miyirkiisu joogo miyirkiisu aan lumayn without causing this why maxay tahay they can be classified into the waxaynu kala saari karnaa kuwan in different category baynu kala saari karnaa laba category oo la yidhaahdo non-opioid analgesics oo ku jiraan acetaminophen ama paracetamol ku jirto
iyo qayb la yidhahdo opioid analgesiska la yidhahdo morphine iyo codeine iyo kuwaasi waa xadigoodu waa xataa prescription baa lagu bixiya waxaa lagu bixinayaa damiin baa lagu bixinaya morphineka iyo codeine-ka qofka waxaa laga yaabaa inuu maxay qofkaasi ku suuxaba ama qofkaasi ku sarqaamaba waaye kuwa markaa non opioidsku halkay xidhaan waxay xidhaan non opioidsku kuwa hore waxay xidhaan in lasoo saaro prostaglandin markaa kuwa ka mas-uul ah waxaanay chemicalska ka mas-uulka inay soo saaraan baa la xidhayaa waxay kor u qaadeen promoting inflammation iyo pain fever intaasay kor u qaadaan intaasi maxay prostaglandin waa chemical laakiin waxay kor u qaaday inflammation iyo painka intaas ma la xidhaya production of the prostaglandin waayo sidoo kalena opioidsku maxay tiraan waxaa la xidhayaa iyada in la soo daayo neurotransmitterskii neurotransmitterska waxa weeyaan waa kuwii painkii u dirayay signalska lahaa kaa kala gee kaa kala soo gee kaa kala gee waa pain waa signals waa fariimihii kii dirayay baa la xidhayaa marka inta ugu badan waxaa loo isticmaalaa moderate-ka iska meel dhexdhexaadka madax xanuunka sidoo kale waxaa loo isticmaalayaa muruq xanuunka dental pain qofka ilkaha xanuunayo kale menstrual crampska dhiigii caadada inta badan dumarka kuwa oo loo isticmaalay opioidska waaye maadaama yihiin qaar xoogan waayo dawooyinka waxaa ku jira kuwan dawooyinka non opioid analgesiska la yidhahdo xanuun baabiyaasha inta badan waxaa ku jira kuwan ibuprofen si fiican baad u taqaanaa ibuprofen aad bay ugu wanaagsan tahay xanuunada dhexe iyo inflammation feverka xumad oo kale aad bay ugu wanaagsan tahay waa moderate painka inta badan acetaminophen ama paracetamol aad bay ugu wanaagsan tahay iyaduna moderate iyo xumada iyo xanuunka moderate pain iyo fever labadaba aad bay ugu wanaagsan tahay xanuunka iyo sidoo kale maxay xumada aspirin iyadana waxaa loo isticmaalaa pain fever intaaba aad bay ugu wanaagsan tahay sidoo kale aspirin waxaa loo isticmaali karaa in lagaga hortago xinjirowga dad badan baa la dhiban xinjirowga sooma oo wadnahooga xinjirow ka galaa ama maskaxda ama dadka faaliga ku dhacay oo kale ayaa qaybta la yidhaahdo hemorrhagic maaha ischemic qaybta la yidhaahdo dadkaas waxay qaadan karaan low dose bay qaadan karaan 75 aspirin way iska qaadan karaan maadaama qofkuna hadduu cholesterol badan ama subag badan oo isticmaalayo kale inuu iska qaato 6 biloodba hal mar xabad ka mid ah aspirinta ayaa inta badan la amaanaa naproxen 2 waxay la group tahay ibuprofenka inta badan waxaa loo isticmaalaa painka iyo inflammationka kaa kale la mid tahay ma aragtaa labadaas waa isku group inkastoo isku wada group yihiin laakiin waa isku groupkaasi waayahay side effects-ka leeyihiin inta badan nebulousku waxay leeyihiin ibuprofenka haddii NSAIDs la yidhaahdo ibuprofen naproxen aspirin intaas waxay leeyihiin nausea iyo heartburn inta badan waxay leeyihiin nausea waxay lalaaligo waa inagii sheegay heartburn inuu qofku laabto oo lasho ekarkaas waxaa ku jira muhiim prostaglandintu waxay meesha ka saartaa xuubkii ilaalinayay markaa qofku wuxuu dareemayaa laab olol buu dareemayaa stomach pain calool olol buu yeelanayaa ama caloosha inay xantadaysan dawakhaad buu yeelanayaa waaye inta badan wuxuu yeelanayaa maadaama seriouska xaaladda inta ugu badan hadduu qofkaasi sii wado bleeding buu ku yeelanayaa caloosha iyo intaa aagaasoo caloosha iyo ilaa intestinalka bleeding buu ku yeelanayaa iyo ulcer maxaa ka mas-uula waxa kan waanigii soo sheegnay in la xidho inhibition lagu sameeyo COX-1ka maaha COX-2ga COX-2gu caadi buu ahaa COX-1ka in lagu xidho COX-1ka waxaa cyclogenase enzymekii la oran jiray cyclooxygenaseska la oran jiray waayo inta badan wuxuu keenaa kidney damage bay keenaan haddii long time use la isticmaalo in badan haddaad isticmaalo waa khatar weeyaan heart attack bay keenaan iyo stroke heart attack waxa weeyaan iyo stroke faaligii iyo wadna xanuun labadaaba way keenaan waana iska ilaalinaysaa inay in badan isticmaasho acetaminophen waxa weeyaan inta badan waxaa loo isticmaalaa waa paracetamol inta badan waxay keentaa in lala qabsado iyada weight related waa seriousna inta badan waxay keentaa in beerku qofku sumoobo ayaa la isticmaalaa inta badan waxay keentaa waxaan la arago inta badan skin reaction qofku inuu yeesho skinkiisa uu ku yeesho rashes ama finan iyo wax ku keento marka maanta waxaan ku joojin doonaa gruubada dambe ayaan bilaabi doonaa marka haddii doono waan iskaga dari doonaa drugless opioidska groupkan iska dhamayno inta badan drug opioid analgesiska waxaa loo isticmaalaa sida kuwan morphine codeine labadaas ugu caansan waxaana soo raacaya tramadol intan waa dawooyinka codeine inta badan caam aha laakiin waxaa caana saddexdan kala tramadol aad baa loo isticmaalaa
codeine inta badan waxa qufaca iyo waxyaabahaasi aad ugu wanaagsantahay painka qufaca keeno. Morphine waxaa lagu daweeyaa severe painka daran tusaale cancer painka oo kale ayaa lagu daweeyaa. Tramadol-shuna inta badan waa moderate severe inta badan xanuunada lafaha iyo meelaha jooga oo kale qof qaylinayo oo kale drowsiness bay leedahay iyo qofka weeba seexisaaba. Kana side effect-giisa sheego inta badan nausea vomiting intan waan soo dhiganay qunqaca iyo raariga constipation calool xanuun calool istaag drowsiness qofku inuu hurdo iyo waxa keeno. Inta badan waxay keenaan respiratory depression inuu qofku markaa respiratory-giisu wax ka sii noqdo haddii la isticmaalo high doses. Marka inta kalena idinka addiction bay keenaan inuu qofku la qabsado oo uu kaa doonaya waxyaabahaas waayahay. Intan waa intii anigu summary soo sameeyay NSAIDs-ku ibuprofen iyo naltrexone oo groupkaas acetaminophen paracetamol baa ku jirta morphine waxa ku jirta iyo codeine opioids waxa ku jira morphine iyo codeine oo groupski kaas waa drugski mechanism-ka halkay xidhayeen sidoo kale common uses-ka ama common doses-ka ay ku yimaadaan side effect-ga ay leeyihiin. Marka waan idin soo diri doonaa casharka intaana way isugu summary oo casharka aynu dhiganay khayr bay idin jecel insha Allah.